أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ثم يجب عليه أن يتعلم شروط الصلاة. ثم يجب حواجبية عليه على المسلم قفك مسلم كأها عن سو شيغني قفك مسلم كأوحا أوهرية أو كواجبة إنay tahay اعتقاد معنى الشهادتين لبدا الشهادتين معنahooda horta inuu qalbiga ku qabsado labada shahaadateyn marka laga helo maxaa kale ku xig talaabada ku xigtay labaad maxay tahay shahaadateynki macnahoodii buu noo soo sheegay hadda wuxuu noo sheegayaa marka qofkii shahaadateynka markii laga helo macnahoodii inuu qalbiga ku qabsaday maxaa laga rabaa kale thumma markaas kadib yajibu waxaa waajibaya calayhi qofkii muslimka ahaa an yatacallama inuu barto ayaa waajib ku ah shuruuda salaati salaada shardiyadeeda shuruuda salaati salaada shuruudeeda shuruud maxaa la dhahaa shayga intaan la gelin ka horeeya salaadii intaan la gelin ka hor maxaa la iga sii rabaa wa arkaanaha salaada tiirarkeeda salaada markaan ku dhex jiro maxaa la iga rabaa haddana tiirarkuwaasaa la yidhaahdaa arkaan iyo shuruud macnaha waxay kula duwan yihiin shardigu waa qabla shay shayga intaan la guda gelin ka hor ayuu ruknigi shardiga u yahay shardigu wuxuu imaanayaa intaan salaadii la gelin buu imaanayaa rukniguna waa fi salaad salaada dhexdeeda ku imaanaya mubdilaadka salaadii markaa dhex geshid maxaa kaa buri kara salaadii maxay ku buraysaa waayahay marka wuxuu leeyahay thumma markaas kadib shahaadateynki markaa qalbiga ku qabsatid thumma markaas kadib yajibu calayhi waxaa waajib ku ah qofkii muslimka ahaa yajibu waxaa waajib ku ah calayhi muslimkii an yatacallama inuu barto shuruuda salaati salaada shuruudeeda salaada maxay shuruudahoy leedahay inaad baratid waajib waa salaadii keliyahaan baranayaa sidii loo dukadana macnaha wixii waajibana ma baranayo ma layska yeelayo haddii kale salaadaadu waxay noqonay eber ayay noqonaysaa bilaasha u foorfoorsanaya qofkaas an yatacallama kow inuu barto ayaa laga rabaa shuruuda salaati salaada shuruudeeda salaada maxaa u shuruud ah waa inuu yaqaanaa qofka muslimka ah wa arkaanahaa tiirarkeeda waa inuu yaqaanaa maxay leedahay oo haddii tiir ka mida laga waayo ay dumayso la guriga haddii tiir ka mida laga bixiyo wuu dumaya isma celi karaayo sidaasoo kale arkaanta salaada haddii mid ka mida laga tagana salaadii way buraysaa wa mubdilaatahaa salaada waxyaabaha buriya inuu barto wa mubdilaatahaa salaada mubdilaadkeeda inuu barto way fa shuruudahaa shuruudeedii marka isagaa mid kugu keenaya marka fa shuruuduhaa shuruuda salaadu 12 shardi wa salaada shuruudeedu waa 12 shardi way 12 shardi way al-awwalu midka koobaad dahaaratu thawbi marada inay daahir tahay marada lagu dukanayo waa inay daahir tahay dharka aad xiran tahay waa inuu daahir yahay waxaa u daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisii uu ku yidhi qawlata bintu yasaar gabadhaasi markay u timid nabiga calayhi salaatu wasalaam bay waxay ku tiri yaa rasuulallaahi innahu laysa lii ilaa thawbun waaxidun rasuul allow sha'niga jira wuxuu yahay iyo xaalka i haysta wuxuu yahay inaanan hal mara mahana ka badan aanan lahayn wa ana axiidu fiihi ana caadada ayaa igu timaada anoo wata ayaa caadada ii timaada oo caadadiiba iga gaarta fa kayfa asnacu bihi maxaan ku samaynayaa haddii caadada iga gaarto san yeelayaa fa qaala wuxuu yidhi idaa dahurti haddii aad daahir noqotid oo caadadu ay kaa go'do faqsiliihi maradiina dhaq thumma salli fiihi markaas ku duko maxay tusinaysaa markaa dhiiggii hadduu gaaro way nijaasowday hadday shaygu maradii nijaasowdo maxaa la rabaa maxay ku daahir noqonaysaa faqsiliihi dhaq baa la yidhi marka waaya maradii waa inay daahir tahay walbadani jirkii waa inuu daahir yahay walbadani jirkana waa inuu daahir yahay walbadani jirka inuu daahir yahay jirka inuu la daahiriyana xadiidkii faadima bintu xubaysh oo nabiga calayhi salaatu wasalaam
ay markay u timid waxayna ahayd gabadhaasi mid ay qabto dhiigga la yidhaahdo mustaxaadada ama dhiigga iska socda ayay weydiisay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasuu nebigu wuxuu yidhi daaka cirqun, kaasi waa xidid go-ay weeye, walaysat bilxaydati, caadadana ma aha. fa idaa aqbalat alxayda, caadada markay imaato fadaci salaada ka tag, wa idaa adbarad markay jeesatana oy kaa go-dane fakhtasilii qubayso wasalli duko. caadadii markay ay imaato waa dhiiggaasi nijaaso weeye, ka qubayso jirkaaga ka nadiifi. marka jirkii in la nadiifinayo xadiidkaas ayaa isna tusinaya. walmakaani, meeshii inay nadiif tahay, meesha aad ku dukanaysid, salliga aad ku dukanaysid inuu nadiif yahay, waa in ay muxuu ahaa meeshii aad ku dukan lahayd ama makaankii lagu dukanayay waa in la nadiifiyaa. waxaa u daliila iyadana nabiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa markii uu masaajidka ku kaadiyey ninkii acraabiga ama reer baadiyaha ahaa, wuxuu yidhi subbuu calayhi, kaadida dusheeda ku shuba danuuban dalow ama muxuu ahaa wadaan oo minal maa'i biyo ah ku shuba, biyo ku dul shuba, biyahaas ayaa nadiifinaya. meeshii marka in la nadiifiyo oo kaadidii ninkii gaartay darteed ay nijaasowday, nijaasna aan lagu dukan karin, waxaa la yidhi biyo ha la keeno ha lagu shubo, markaasay daahir noqonaysaa. saddexdaasba waa inay daahir ku ahaadaan. marka dahaaratu thawb, maradii inay daahirta, walbadani jirka inuu daahirya, walmakaani meeshii inay daahirta. maxay daahir ka yihiin marka? min annajaasaati, nijaasooyinka waa inay daahir ka ahaadaan. nijaasooyinka kuwee waaye? nijaasooyinka balnabar maxaa ka mid a? wahiye nijaasooyinkii ayuu noo tirinayaa marka. alkhamru, khamradii waa nijaasada koowaad, waa qamrada waa nijaas. inama alkhamru walmaysiru walansaabu walazlaamu rijsun, ilaah baa yidhi waa nijaaso ee fajtanibu ka dheeraada la yidhi. khamradii iyo maysarkii iyo ansaabtii iyo aslaamtii kulli waxaa la yidhi waa nijaase, ka fogaada. marka alkhamru inay nijaas tahay aayaddaas qur-aanka tusto. walbawlu, kaadidii iyana nijaas waa, kaadidu nijaase ayay noqonaysaa. kaadida labaa loo kala saaraa, wiilkii yaraa kaadidiisi iyo gabadha yareed, ama muxuu ahaa wiilka aan caana mahana wax kale aan cunin, nijaasa mukhafafa ayay ahayd, waa soo aragnay. sidoo kale gabadha iyo wixii muxuu ahaa nijaasooyinka kalena iyagana inay yihiin nijaasa mutawasita inay yihiin. maxaa la rabaa marka iyaga? nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yundaxu bawlu ghulaami, cunuga yarkaan caana mahana wax kala cunin waa la rushaynayaa, biyo ayaa lagu firdhinayaa bis. wiilkiina maxaa la samaynayaa? gabadhiina maxaa la samaynaya? wa yuqsalu bawlul jaariyati, gabadha kaadideedana waa la dhaqaya. dhaqitaan maadaama u imaada inay nijaas tahay ayay ku caddaynaysaa. waaya, marka kaadida iyadana waa nijaas. walghaa'idu, saxaradii waa nijaaso, saxaradu waa nijaaso. xadiidkii cabdullaahi bin mascuud ayaa wuxuu yidhi ata nabiyu, nabiga ayaa macnaha wuxuu yidhi alqaa'ida makaana alqaa'idi, meeshii makaano saxaradii ayuu yimid oo inuu saxaroodo ayuu rabay. fa amaranii, markaasu wuxuu amray an aatihi inaan u keeno bihalaathati axjaarin, 3 dhagax. fa wajadtu xajarayni, 2 dhagaxaan soo hela marka. waltamastu thalitha, mid 3aadaan raadiyay, falam ajidhu ma helin. fa akhadtu, markaasaan waxaan soo qaaday rawthatan, digo ayaan soo qaaday. fa ataytuu bihaa, waanuu la imid. fa akhada alxajarayni, 2 dhagaxuu qaaday, wa alqaa rawtha, digadiina wuu tuuray. wa qaala wuxuu yidhi haadaa riksun, kani waa nijaas, digadu waa nijaas, laakiin dhagaxi waa la isticmaali karaa. marka dhagaxa wuxuu geli karaa booski biyaha ayuu geli karaa. waa shuruudu ijzaa alxajar, safiinatu najaha ayaa marka koobaad ma soo bartaba. marka qaa'idka ama saxaradu waxa ay tahay waa nijaas, nijaasta 3aad waa. nijaasta 4aad waxaa la yidhaahdaa warrawthu, digada iyadana waa nijaas. xadiidka hadda aan ka sheekaynaynay oo inuu diga intuu keeno nijaaso waayo uu yidhi ayaa tusinaya. wadamu, dhiiga isaguna nijaaso wey. gabadhii muxuu ahaa caadada u timid oo la dhahay caadada markay kuu timaaday kaa go-do ka qobayso ayaa tusinaysa iyadana. wadamu, dhiiga. walqayxu,
malaxda ama maasha meesha ay muxuu ahaa bukata ama jirata maasha ka imaanaysa ama carunka ka imaanaya ama malaxda ka imaanaysa qayxaasi ama sadiid ha ahaado ama mid dhiig wata ha ahaado ama mid aan dhiig wadanin ha ahaadee iyaduna waa nijaas. waxaa looga qiyaas qaadanaya dhiigga ayaa looga qiyaas qaadanaya. walqay-u mataga isaguna waa nijaas. walqay-u matagii hadduu ku gaaro, haddii uu afkii gaaro, haddii uu muxuu ahaa weelkii gaaro, kulli nijaas waay. meeshaas masaladaas marka la iska daahirinayo waxay u baahan tahay inuu qofka aad uga fiirsado. tusaale ahaan mataga afkii wuu nijaaseeyey, si aad u daahirisid haddii biyaha aad gacanta ku shubtid afkii aad taabsiisid ay taabanayaan, afkii ay taabtaan, faruurihii gacantii ay taabtaanba biyihiina way nijaasoobayaan, afkiina macnaha biyihii iyo gacantiiba way kaa nijaasoobeen. ila shay nijaasa ayaad waxaa taabsiisay shay kale oo aad rabta inaad ku daahirisid. maxaa la samaynaa marka? biyaha kor uga shub, ka luqluqo, haddana mar kale afkii kor uga shub, ka luqluqo. sidaasuu ku daahiroobi karaa. laakiin hadday istaabtaan bimujaradi mulaaqaati shay, caagii haddaa afka saartina kaba sii daranba. caagga markaa afka saartid, caaggii biyihiisii wuu qoyaha, faruurta markay taabataba nijaastii maxaa la kulantay? biyihii waxay gaartay matagii ayaa gaaray, iyadan nijaasay noqonayaan. marka waxaa la rabaa marka la iska daahirinayo mataga, shayga aad ku daahirsanaysid inaadan afka saarsan. haddaad sacab kusoo shubtid kor uga shub afka, haddaad weel kusoo qaadid kor uga shub, laakiin ha taabsiinin. haddaad taabsiisid shaygii bimujaradi mulaaqaati wuu nijaasoobaya isagana. walkalbu eyguna isaguna nijaaso wey. walkhinziiru doofaarku isaguna nijaaso wey. wa faracu axadihimaa labadooda wixii ka farcama ama iyagu haska dhalaan ama shay kale ha ka dhalaane iyaguna waa nijaaso. walmaytatu baktigii, maytada shaygii ay baktiya isna sidoo kale nijaaso ayuu noqonaya. waaya waxbaa laga soo reebi doonaa maytada kuwa la soo reebi doonaa jira. walmaytatu baktigii isagana waa nijaaso ayuu noqonaya. wa shacruhaa maytada tinteeda ama dhogorteeda, maytada tinteeda iyo dhogorteedu nijaaso wey. shaygan baktiyey dhogortiisii iyaduna nijaaso wey. wadilfuhaa cidiyaheedii iyaduna waxay noqonaysaa nijaasay noqonayna. wa jilduhaa maqaarkeedii sidoo kale. wa cadmuhaa lafteeduna nijaaso wey. ilaa maytata alaadamiyi, maytada aadamiga maahan. aadamiga bini aadanka meydkiisu nijaas ma noqonayo. meydka bini aadanka nijaas ma noqonayo, ilaah baa karaameeyey. sidoo kale maxaa nijaas noqonayna? wasamaki ilaa maytata samaki, malayga baktigiisa isna sidoo kale nijaas ma noqonayo. waljaraadi wa maytati ljaraadi, ayixii maytadiisii iyaduna nijaas ma ah. maxaan kaloo nijaaso noqonayna? walmudakaati wa maytati lmudakaati, midkii la gowracay maytadiisa, almubaaxi ee uu bannaanaa akluhaa in la cuno. shay uu bannaanaa in la cuno haddii la gowraco markuu dhinto isna nijaas noqon mayo. intaas shayba maytada waa laga soo reebay. bini aadankii, malaygii, ayixii iyo shaygii la gowracay intaba nijaasadoodu xaaraan ma ah. muxuu ahaa maytidoodu ama baktigoodu ma ahan muxuu ahaa nijaaso ma ah. waaya weli wuxuu noo tirinayaa nijaasooyinka ayuu noo tirinayaa. fa mataa laaqad, marka intaasoo najaasoon soo sheegnay, fa mataa markii laaqad ay la kulanto haadihi najaasaatu, nijaasooyinkan markay la kulanto, thawbal insaani, qofka maradiisa markay la kulanto, shaygii iyadoo qoyan, nijaasadan kuwa qaar inay qoyan yihiin loo shartinaya, kuwa qaarna iyagaaba qoyaankooda ka samaysan. haddii ay la kulmaan marka maytooyinkaani thawbal insaani, insaanka maradiisa markay la kulmaan,
aw badanahu ama jirkiisa ay la kulmaan aw musallaahu ama meesha uu ku dukanaya ay la kulmaan aw gayrihimaa aw gayrahaa ama waxaan ahayn oo min aljaamidaati waxyaabaha qalalan ah maca ruduubatin qoyaan lala qabo oo fiihaa najaasadaasi ahaaday nijaasadii baa kulma aw amase fii mulaaqihaa ama qoyaankaas oo fii mulaaqihaa midka ay la kulanta warkaas iska fiiri maxaa la leeyahay nijaasadii ayaa waxay la kulantay maradii ama jirkii ama meesha uu ku dukanayay oo waxyaabaha qalalan ah shaygii jaamidaadka ahaa laakiin maxaa jira maca ruduubatin fiiha najaasadii way qoyanta nijaasadiiyaa qoyan digadii way qoyanta maytadii way qoyanta kuwa kale xaarka iyo saxrada iyagaaba qoyanaaba kaadida iyadaa qoyaneed shaygaas markay la kulmaanba ow amase fii mulaaqihaa shayga ay la kulmayaana qoyan dharkiyaa qoyan jirkiyaa qoyan maradii oo salliga lagu dukanayaa qoyan qoyaanku marna wuxuu yahay maca ruduuba fiiha najaasadiyaa qoyan ow amase fii mulaaqihaa shayga ay la kulmayso oo dharkii ama jirkii ama salligii ayaa qoyan maxaa dhacaya marka fa in kaana lahaa hadday leedahay dacmun dhadhan hadday leedahay aw lownun midab hadday leedahay aw riixun ama ur hadday leedahay wajaba waxaa waajibaya qasluhaa in la dhaqo ayaa waajibaysa xataa yazuula intii ay zuulayso dhadhankii midabkii urti intay ka zuulayso in la dhaqo waajib waa nijaasadii sida ay daahir ku noqonaysaa waxay tahay in la dhaqo iyadoo biyihii kor looga keenayo weliba shaygii maradii markii la dhaqayo maradii nijaasada ahayd haddaad rabtid inaad dhaqdid biyihii haddaad dhex gelisid way nijaasoobaysaa sidii matagii oo kale waa maradan nijaasa kaa gaarta inaad daahirisid haddaad rabtid marada biyaha kor uga shub biyaha kor uga keen ha kulansiinin biyihii oo nadiif ah iyo maradii oo nijaasa hadday kulmaan biyihii kor kaga imaadaan nijaasadii inay daahirisidna aad niyeysatid way kuu daahiroobaysaa haddii ay ur lahayd urtiina ay ka baaba'do laakiin haddaan soo qaado biyihii sakaal ay ku jiraan maradiisaan u soo qaaday sakaalkii biyihii baafkiiaan ku shubay baafkii biyihiiaan ka hor shubay maradii aan soo qaaday biyihiiaan ku dhex riday waa nijaaso weliba ma aadan daahir waa dhaqday haddana waxuu ahaa waxaa samaysay biyihii aadna raacinaysay waa ka daadisay biyihii aad haddana ku shubtay maradii aad ku dhex riday weli nijaastii ma aadan daahirin maxaa la rabaa nijaasta markii la daahirinayo in biyihii kor looga keeno waajib waa haddaadan kor uga keenin mar walba shaygii wuxuu ahaanayaa nijaasadiisiyaa ku harayso jirkaaga sidoo kale waa laakiin ogow mid jirkaaga markaad qabaysanayso sidoo kale haddii adoo inta qabaysatay jirkaaga markuu ku qoyan yahay ba waxaa kugu soo dhacday inaad faajootid ama saxarootid ama kaadi aad samaysid jirkaagina wuu qoyanaa kaadidii markay imaato maxay samaynaysaa meesha ay ka soo baxda ku ekaamaysee jirkii dhamay ku faafaysaa ila uu qoyan yahay maxaa waajib kugu ah istijo haddaad istijootidoo meesha keliya dhaqdid ma aadan jirkaagii nadiif ma ah waxaa waajib ah inaad jirkaagii mar kala wada dhaqdid ila nijaastan adoo qoyan timid jirkii ku faafaysaa jirkii maadaama ay ku faafato waxaa lagaa rabaa inaad wada dhaqdidaa waajib amar dambe waaya labadaas arrinba si fiicana la isaga ilaaliya uma markaas kadib nijaastii markaasaa u dhaqdid oo shaygii urtiisii aad zuulisid uma yaziidu wuxuu ku kordhinayaa fii najaasati alkalbi eygii nijaastiisii iyo walqinsiiri iyo doofaarka iyo wixii ka farcamay 6 qasalaatin 6 dhaqmo ayuu ku ziyaadina hal mar waa soo dhaqday urtiyaad ku zuulis waaxidatun 6daas midkood oo minhaa 6da kamid waaxidatun mid oo minhaa 6da kamidana mamsuujatun lagu daray bituraabin cara lagu daray dahuurin oo daahir ah cara daahir ah ayaa lagu daraya eygii maxaa la yidhi waxaa lagu siyaadinayaa eygii iyo doofaarkii 6 qasalaatin 6 dhaqmo 6 haddii lagu daro halkii hore lasoo dhaqa meeqa waay 7 waaxidatun mid
oo minhaa toddobadaas ka mid ahne ama lixdaas ka midane mamsuujatan ay tahay midii lagu daray bituraabin caro dahuurin oo daahira wa in kaanat hadday tahay min gayrihimaa labadoodaas nijaasadii wax ka soo haray hadday tahay qasalahaa nijaastii wuu dhaqayaa maratan waaxidatan hal mar oo dhaqaya hal maraa kaa kaafinaysa laakiin maxaa shardi ah bacda isaalati alriixi wallawni waatacmi haddii ay dhadhan lahaan lahayd haddii la dhadhamiyo midab hadday lahaan lahayd haddii ay ur lahayd markii la baabi'iyo markaas kadib ayaa la nadiifinaya oo la daahirinaya wayajibu waxaa waajiba waa kana isagaaba noo sheegay wayajibu waxaa waajibaya sabulmaai biyi in lagu shubo cala almutanajisi shayga nijaasooba biyaha in kor looga keeno biyaha in kor looga keeno ayay ku daahir noqonaya idaa kaana almaau biyi hadduu yahay duuna alqulatayni laba qulatayn wax ka yar hadday yihiin sidaan ognahay saddexle ama sakeel baan wax ku dhaqanaynaa sakeelkii iyo way ka yaryihiin qulatayn soo maaha biyihii shayga kor inaa uga shubtid way laakiin hadday yihiin biyo badan baddii oo kalea ku dhaqanaysaa webigiiyaad ku dhaqanaysaa dhex geli ma nijaasoobayo laakiin kuwan haddaad gelisid wuu nijaasoobaya fa in udkhila haddii la geliyo fa in adkhala almutanajisa hadduu geliyo shaygii nijaasta ahaa fiihi biyihii dhexdiisa lam yadur isagii daahir noqon maayo watanajasa almaau biyihiina way nijaasoobayaan maxaa kaloo nijaas noqonaya wa mulaaqihi midkii la kulmayna wuu nijaasoobayaa warkaas ma la fahmay shaygii haddii la dhex geliyo nijaasada ahaad sakaalkii ayaad dhex gelisay maradii nijaasada ahayd biyuhu ku jiraan maradii daahir kuu noqon mayso horta biyihii oo sakaal ku jiraan nijaasay noqonayaan wa mulaaqihi shaygii kaloo lasii kulmo shay kale oo daahir ah haddaad kusii riddo isna nijaasuu sii noqonaya wa mulaaqihi midkii la kulmo wayajibu waxaa waajibaya sabulmaai biyaha in kor laga keeno cala almutanajisi shayga nijaasada noqdo idaa kaana almaau biyi hadday yihiin duuna alqulatayn laba qulatayn wax ka yar qulataynba hadday ka yar yihiin 216 litar hadday biyuhu ka yar yihiin shaygaasi kor in looga keeno waa qulatayn waxaa la yidhaahdaa markii litarka xaggiisa xagga loo aado waa 216 litar wixii gaaraya marka shaygaasi biyaha waa in kor looga shubaa nabiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ninkan ku kaadiyey meesha muxuu yidhi subbuu calayhi subbuu ku shuba xaggee looga shubayaa calayhi korkiisa ku shuba danuuban min almaai dalow oo biyo ah ku shuba ama wadaan biyo ah ku kor shuba marka shaygii mutanajiska ah biyaha kor inaa uga keentid inaad dhex gelisid ma wayajibu waxaa waajibaya calayhi qofkii waxaa ku waajibaya alistibraa'u hubsasho min albawli kaadida inuu hubsado istibraa waxaa la yidhaahdaa inaan wax kala soo soconin inaad hubsatid yajib calayhi waxaa waajiba alistibraa'u hubsasho min albawli kaadida uu hubsado xataa yaqliba intuu u bato calaa dannihi malihiisa annahu sha'niye laa yacuudu inuusan soo laabanaynin oo walaa yakhruju inuusan soo baxaynin kaadi dambe inaysan soo baxaynin markaad hubsatid markaas kadib istijoo xataa yaqliba intuu u badiyo calaa dannihi malihiisa annahu laa yacuudu inuusan soo laabanaynin oo walaa yakhruju uusan soo baxaynin waayo kaadida aan la iska hubsanin ahlu cadaab baa lagu noqdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray 2 qabriyuu soo maray markaasuu wuxuu yidhi yucadabaani labadan qabri waa la cadaabaya wamaa yucadabaani fii kabiirin shay weynna loo cadaabi maayo amaa axaduhumaa midkood fakaana laa yastatiru min albawli kaadida wuxuu ahaa midkii aan iska hubsan markuu kaadinayo wuu kaadinaa kaadidiioo weli ka dhammaanin ayuu nijaastii iska dhaqayaa isla markuu dhaqaaqana jirkii mid kale soo daynaya ila mar mathaanada hadday furanto marka ay furanto kaadi haysto wixii ku soo dhacay xilligaas way sii daynaysaa amara waxay qabtaa inay sii dayso fasax marka ama xubintii bay ku soo socotay oo mathaanadii way xirantay marka waxaa laga rabaa qofkii inuu si fiican isaga hubsado kaadidii markuu hubsado inaysan wax kale soo baxaynin inuu iska ilaaliyo midka kalena wuxuu ahaa buu yidhi wa amal aakharu fa kaana yamshi bin namiima
kaadida iskama hubsan jiray midka kalena wuxuu ahaa midka dadka dhexdooda u socda dirdiraalaha dadku isku durdiri jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam muxuu sameeyey marka wuxuu soo gooyey laan qoyan buu soo gooyey markaasuu laba unta u kala jeexay أو mid walba qabrigiisii mid ku talaala oo geliy markaasuu wuxuu yiri inta ay dhaantaas qoyan tahay dambi dhaaf bay u weydiinaysaa cadaabta in looga fududeeyo la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yaybasa intaysan qalalin oo qoyan yihiin ilaah bay dambi dhaaf u weydiinayaan waana looga fududeynaa cadaabta looga fududeynayo waaya marka istibraha waa waajib waa qofka in uu kaadida iska hubsadaay waajib waa thumma markaas kadib markuu hubsado inaan wax kala soo bixinin yastanji uu istijoonaya hubsashadaas waxay keenaysaa qofka midalan markuu qabaysan rabo kale hadii inta uu istijoodo markuu istijoodo kadib kaadida ay mid kala imaato arigii uu qooyo dhan nijaas uu noqonaya waxay noqonay intii oo dhan haddana inuu dhaqo oo mar kale dib u dhaqay noqonaysa sidaas waxa la leeyahay marka hubsashadu saasi waajib u tahay marka uu rabo inuu qubaystana inta uusan qabayska isku bilaabin inuu si faajoodo marka uu dhameysto xaajadiisa istijoodo kadib uu qubayskiisa galo wayurkhi wuxuu raaricinayaa duburahu dabadiisa ayuu raaricinayaa xataa yaqsila inuu intii uu ka dhaqayo ma fi tabaqaatihi laalaabkeeda waxa ku jira oo min najaasaati najaasa dabadina sidoo kale inuu inta raariciyo wixii wasaqo ku jiray oo si tartiib ah u dhaqo iyadana ayaa la rabaa wayurkhi wuxuu raaricinayaa duburahu dabadiisa xataa yaqsila intii uu ka dhaqayo ma fi tabaqaatihi laalaabkeeda waxa ku jira oo min najaasaati najaasa maxaa kaloo la rabaa wayudlikahu inuu rugo bihi inuu maradii gacantii inuu ku rugo xataa yaqliba intii uu u badinayo calaa dhanni malihiisa zawaalu طacmi najaasati najaasadii dhadhankeedii inuu baaba'ay walawniha midabkeedii inuu baaba'ay wariixa urteedii inuu baaba'ay najaasadii urteedii iyo waxeedii intay isleeyahay uu baaba'ay inuu gacanta marmariyo waajib waa wamata laaqatil najaasaatu markii ay la kulmaan najaasooyinka wamata laaqad markay la kulmaan النجاسات نجاسوينك المذكورة إلى صوشيغي الماء بيه مركا إلا كلمان فإن كان قلتين لوا قلتين هدويا بيهاس لم يتنجس من نجاسوي نجاسوينك أن صوتريني يبيه هدي كلمان بيه محاكو دعا لوا أكلاقات بيه هديهن قلتين لوا بقل 8 لتر هدي كبديهن لم يتنجس من نجاسو لم ينجس ما نجاسوي إلا إن غيرت شرط قاسات دبا سعودة إلا إن غيرت إني بدشو نجاستي مان إلا إن غيرت نجاستي إني بدشو طعمه بيه ددن كيسة أو لونه مذب كيسة أو ريحة أرتيس بيها قلتين كأه وحيكون نجاسو بكران هدي مذب كودة ددن كودة أرتود هديس بدشو ويظهروا حين كو ظاهر نقانيان بزوال التغير اسبدل كيو زوله اسبدل كيو ماشا كبحا اي كوز محوها اي ظاهر كو نقان كران ويظهروا ظاهر بين نقانيان بي قلتين كا بزوال التغير اسبدل كيو بابا وإن كان هدويها بيه أقل متكير منها قلتين كي وحكير هدويها يتنجس نجاس بو نقانيان بالملاقات أو لكل مبا وإن لم يتغير يوسف اسبدل لغاوة سوغي بيه هداي قلتين من نجاسو بيان هدان مذاب كودي دادن كودي ارتدي اسبدل هدي اي بعضان الظاهر بين نقنايا هداي بيه كيريين قلتين مرا الله مركي نجاسو كل عذاب الله نحرست وين نجاسو بين وإن لم يتغير يوسف اسبدل ويظهر الظاهر بين نقنايا بيه او كيرا لبدا قلتين nijaasta ahaa waa la daahiri karaa maxaa lagu daahirinayaa bibuluuqihi in la gaarsiiyo qulatayn laba qulatayn in la gaarsiiyo biyihii la badiyey waa la badiyey laba qulatayn la gaarsiiyey daahira noqonaya wamataa laaqati najaasaatu markii ay la kulanto nijaasooyinka almadkuuratu ee lasoo sheegay maa'ican shay qoyaan ah oo khayral maa'i biyaha aan ahayn shay maa'ica
oo dareera ah maa'ic waxa la yiraahdaa shayga dareeraha ah shay dareera ayay la kulmeen oo ghayral maa'i biyo aan ahayn tanajasa wuu nijaasoobaya shaygaasi bimulaaqaatiha la kulmideeda qaliilan aw kathiran ha yaraado ha badnaadeen caanihii ayay nijaasooyinkan soo sheegnay la kulmeen ama ay ku dhacdo buu nijaasoobaya taqayyara isbedelaya aw lam yataqayyar ama yuusan isbedelin walaa yadhuru ma daahir noqonaya qad weligiis daahir noqon maayo walaa yadhuru daahir noqon maayo qadu weligiis daahir noqon maayo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa la weydiiyey su'ila can alfa'rati tamuutu fi samni waxaa la weydiiyey doolli ku dhintay subagii ama saliidii faqaala wuxuu yidhi in kaana jaamidan hadduu qallalan yahay oo qallayl ahaa oo mid fadhiyey ahaayo kor dhacay laabis fa alquha iska tuuro wamaa xawlaha wixii agaarkeedana ku dhin oo hareeraheedana tuuro wa in kaana maa'ican laakiin hadduu yahay mid qoyanaa falaa tuqaribu ha u dhowaanina marka taas waxay tusinaysaa shaygan haddii uu la kulmo nijaasada ah shay dareera ama caanihii ama subagii ama saliidii hore le laga daadinayaa iyaga hala badiyo iyo qulatayn ha gaaraan iyo hala yarayo isbedel ma gaareen iyo ma la dhahayo horaa laga daadinaya wallahu subxaanahu watacaala aclam ambaqaadka geediga sida urta loo raro heesa u gaarka wax lagu aloosaa magaceebahe iyo adin iyo afwada jira